bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti habboon oo hagaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waxaa ku soo dhowaada warka shabakadda birmad somaali t v oo aad ka daawataan bartaan youtube-ka ku leenahay qodobada aad warkeenna ku maqli doontaanna waxaa qayb ka mid noqon doona hadduu eebba raalli ka noqdo xog ayaa ka soo baxaysa diyaarada ka degay magaalada caasimadda waa somalilan ee hargeysa kadib furitaankii shirka jabuuti uga furmay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale somalilan amara ka soo baxay ciidamada taliska badda ee Soomaaliya oo ka dhaqan galay magaalada caasimadda ee Muqdisho muddo ku dhow 30 sano kadib dowladda waddanka Jabuuti oo si rasmi ah u saacishay sababta ka dambeysay xariga loo geystay duuliye Fuad iyo 6 eedood oo ay dowladdu ku soo bandhigtay war-saxaafadeed ay soo saartay saynisyahaniin u dhashay waddanka Ingiriiska oo sheegay in daawadii ugu horeysay oo loo helay cudurka COVID-19 ama coronavirus laga helay gudaha waddanka UK qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan fadlan waxaan si xushmad leh idinka codsanaynaa haddii ay tahay markii idinku horeysay aadna soo booqataan waxaad subscribe ku samaysaan bartaan youtube-ka ku leenahay ee Birma TV aan ku bilownay waxaa maalintii axaddii madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport soo caga dhigatay 2 diyaaradood kadib furitaankii shirka Jabuuti ee wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland diyaaradahaas ayaa ahaa kuwa hore ay u diideen Somaliland oo la shaaciyay inay buufinayeen ayaxa isla markaasna la soo mariyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu maamul goboleedyada dalka sii gaarsiinaysay imaatinka diyaaradahaas ayaa la xiriiriyay furitaanka shirkaasi iyo isfahan wada shaqeyn oo ka dhalanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Somaliland oo muddooyinkii u dambeysay ay ka dhaxaloosnayd xiisad xooggan wasiirka beeraha Somaliland iyo xubno ka tirsan hay'adda beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee loo yaqaan FAO marka magaceeda la soo gaabay ayaa madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyay diyaaradahaasi oo xilligan baahi weyn u qabtay Somaliland maadaama uu ayax fara badan ku habsaday qaar ka mid ah deegaanada beeralaydu ay ku nool yihiin wasiirka beeraha Somaliland ayaa sheegay in dadaal badan ay galiyeen diyaaradahaasi kuwaas oo uu sheegay inay wax ka tari doonaan sidii loo dabargoyn lahaa ayaxa faraha ba'an ku haya beeraha Somaliland diyaaradahaasi ayaa ka mid ah kuwa ay hore u diiday xukuumadda Somaliland xilli loo soo mariyay dowladda federaalka ee Soomaaliya balse xilligan si madax bannaan uga soo degeen madaarka Hargeysa sida ay Birma TV u xaqiijiyeen xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Somaliland tallaabadaas ayaa u muuqata mid lagu dabaqayo isfahan hordhac ah oo laga gaaray in Somaliland si toos ah loogala tacaamulo deeqaha ay caalamku bixiyaan iyadoo hay'adaha caalamiga ah ay si madax bannaan ula tacaamuli karaan xukuumadda Somaliland iyagoon soo marsiinaynin baa la yidhi dowladda federaalka ee Soomaaliya tan ayaa la sheegayaa inay qayb ka mid tahay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya uga socda dalka Jabuuti kuwaas oo la sheegayo inay qayb ka noqon doonaan isfahanka labada dhinac waa hagaag daawadayaal haddii aynu aadna markana dalka Jabuuti dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay war rasmi ah ka soo saartay xariga duuliye Fuad Yuusuf Cali oo muddooyinkii dambe ku xirnaa dalkaasi iyadoona ka dhalatay xiisad hor leh oo ka taagan gudaha dalka Jabuuti ayaa duuliyaha ku eedeysay 6 arrin kuwaas oo ay sheegtay inuu xiran yahay isla markaana been abuur ku tilmaantay warar kala duwan oo maalmihii u dambeeyay ka soo baxay xariga duuliyahan duuliye Fuad ayaa ku eedeysan baa leeyahay inuu khatar galiyay nabadda dalka guud ee Jabuuti kadib markii uu xiriir la sameeyay waddan ay hayaan ee Eritrea sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay dowladda Jabuuti ka soo saartay xariga duuliye Fuad maalmo badan waxaa la faafinayay sheekooyin sal ku haya mucaaradka oo ku saabsan eedeymo aan run ahayn iyo ku tiri kutaan oo aan xaqiiqada ku dhisnayn oo ku saabsan xariga Fuad Yuusuf Cali oo la dhigay xabsiga Gabood ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka sidoo kale waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay gaashaanka ku dhufanaysaa baa la yidhi wararka la isla dhex marayo oo ay daabaceen warbaahinta ay ka mid yihiin kuwa dibadda laga leeyahay haddaba 6 qodob oo ay dowladda Jabuuti ku eedeysay duuliye Fuad ayaa sidan tan u dhignaa 1 inuu isku dayay inuu diyaarad la baxsado 2 inuu isku dayay inuu diyaaraddaas burburiyo haddii uu suurtagal weyso inuu la baxsado 3 inuu xiriir joogto la lahaa awood ajnabi ah oo ah waddanka lagu magacaabo Eritrea 4 inuu shaaciyay fariin qalalaasa abuuraysa 5 inuu khatar galiyay difaaca qaranka oo uu militariga ku booriyay inay amar diida sameeyaan 6 inuu si shacab baxsan meel ka dhac ugu sameeyay militariga dalkaasi Jabuuti dowladda Jabuuti ayaa sidoo kale hore u sheegtay in duuliye Fuad ku kacay fal khiyaano qaran ah taasi oo ku mudan kara baa la yidhi dil toogasho ah walow uusan arrinkaasi la qabin qareenka u doodaya duuliyahan qareenka u doodaya duuliye Fuad ayaa dhowr jeer warbaahinta ka sheegay in dowladda Jabuuti ay ku timatay xuquuqda dastuuriga ah isla markaasina qaab sharciga baalmarsan ula dhaqantay Fuad Yuusuf Cali oo ah duuliye ka tirsan ciidamada cirka ee dalkaasi Jabuuti
maalmihii u dambeysayba Jabuuti waxaa ka dhacay mudaharaadyo looga soo horjeedo xariga ay dowladdu u geysatay duuliye Fuaad Yuusuf Cali oo ay dadka shacabku ku dalbanayeen in ay dowladdu ka gardaran tahay duuliyahaasi. weli waxaad daawanaysaa wararka dunida ee Birmad Somali TV. fadlan waxaan kaa codsanaynaa mar kale haddii ay tahay markii kuugu horeysay aadna soo booqato inaad subscribe ku samayso bartaan YouTube-ka ku leenahay ee Birmad TV. sidoo kale waxaad nagala socon kartaan Facebook-ka Birmad TV. haddii aanu ku laabano magaalada caasimadda ee Muqdisho, taliska ciidamada badda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay 30 sano kadib soo saaray amar ka baxsan gudaha ciidamada oo si toos ah taabanaya nolosha dad badan oo shacab ah oo ku nool magaalada Muqdisho. amarkan ay soo saareen ciidamada Mariniska Soomaaliya ayaa ah mid ku wajahan kalluumaysatada xeebaha magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo ka tirsan kalluumaysatada Muqdisho. amarkan ayaa ah in kalluumaysatada xeebaha magaalada Muqdisho ay soo gudbiyaan sawirada iyo magacyada milkiilaha doomaha iyo sidoo kale wadaha doonta ka hor inta aan loo ogolaanin inay gudaha u galaan badda Soomaaliya. kalluumaysatada ayaa shalay dhigay banaanbax inkastoo markii dambe ay isku fahmeen iyaga iyo taliska ciidamada badda Soomaaliya sida aan xogta ku helnay. ciidamada badda Soomaaliya oo qayb ka tirsan ciidamada difaaca qaranka Soomaaliya ayaa weli ka soo kaban burburkii gaaray waxaana aad u hooseysa soo kabashadooda marka la eego qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. muddo 30 sano kadib ayaa lagu sheegay in uu amarkan yahay muddo 30 sano kadib ayaa la sheegay in amarkan ay ciidamada badda Soomaaliya ku soo rogeen xeebaha magaalada Muqdisho inuu yahay kii ugu horeeyay ee ka dhaqan gala gudaha magaaladaasi kadib markii la sheegay in ay kalluumaysatadu qaateen amarkii ahaa in ay soo gudbiyaan liiska mulkiilaha doonta nambarkeeda iyo sidoo kale wadaha doontaasi inta aan loo ogolaanin inay gudaha u galaan badda Soomaaliya si ay kalluumaysi ugu sameeyaan kheyraadka ku jira gudaha baddaasi. wahagaag ugu dambeyntiina daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybtii ugu muhiimsanayd ee warkeena maanta. guud ahaan khubarada caafimaadka ee dunida ayaa maskaxdooda mashquul ku ahayd sidii daawo loogu heli lahaa cudurka COVID-19 ama coronavirus. hase ahaatee khubaro ka tirsan jaamacadda Oxford ee London iyo dhakhaatiir kale ayaa shaaca ka qaaday warar aad loogu farxo. kiniiniga loo yaqaano dexamethasone ayaa noqday daawada kaliya ee dili karta cudurka coronavirus, dhimashadana ka badbaadin karta baa la yidhi dadka qaba cudurkan ee xaaladda halista ku jira. madaxa kooxda baaritaankan iyo tijaabadan samaysay Professor Petri Harbi ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo muhiim ah hore loo qaaday. tani waa daawada kaliya ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay yareynayso karto dhimashada qofka xaaladiisa ay aadka ugu daran tahay COVID-19 si sarreysa ayayna u yareynaysaa awoodda cudurkani. waa guul weyn oo la gaaray ayuu Professor Petri u sheegay warbaahinta. isbitaalada loo yaqaano NHS ee wadanka UK ama Ingiriiska hadda waxa ay bilaabeen isticmaalka kiniinkan kadib markii lagu guuleystay tijaabo lagu sameeyay bukaanno qaba COVID-19 ama coronavirus kuwaas oo isugu jiray kuwa xaaladooda halis ahaa iyo kuwa aan u baahnayn qalabka neefta lagu xiro. 2,000 oo qof oo lagu tijaabiyay daawadan ayaa dadkii ku xirnaa qalabka neefsashada ee koomaha ku jiray ay ka caawisay inay badbaadaan oo ay caafimaad qabaan baa la yidhi. qiimaha kiniinigan loo isticmaalo neefta ayaa aad u hooseeya wadanka UK waxaana lagu sheegay inuu yahay lacag u dhiganta £5 oo lagu iibiyo xirmadii oo ka kooban 20 xabbo ama index. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay dabcan wararka dunida ee aad kala socoteen shabakada warbaahineed ee Birmad Somali TV. fadlan waxaan mar kale kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay aadna soo booqatay inaad subscribe ku samayso bartaan YouTube-ka ku leenahay si aad ula socoto wararka iyo dhacdooyinka kale ee aan maalin walba ku soo gudbino bartaani.